والله بالله تالله وان دارنيا haddii la joojin waayo waxa socda habeen dambe wixii magaalada ka dhacay iyo sahan dambe mas'uulka ma inanaba wallahi baanan mas'uulka ahay haddaan maxduusiyo dalay Ameerikaaga si weynado xabay taariikh buu dadka ilaa maxduusiyo dalay Ameeri haddaan adiga kaaga bilaabi weyno reer maabo nin walba ninka uu eeriyo heeriyo laakiin waan hadduu samaysanayo aqal foote hadduu samaysanayo suldaan foote hadduu samaysanayo wuxuu samaysanayo nin walba uu samaysantii booskan maanta isagu ka sheekeynaya kiisa lagu waayaa bal isagu wuxuu ka leeyahay daba dhabankiisa isku qabsanayna saacadan laga bilaabo waa dhaqanku wuxuu leeyahay qiimo wuxuu leeyahay karaamo wuxuu leeyahay mudnaan wuxuu leeyahay ilaalin buu leeyahay laguma xadgudbo dawladdu ka madax banaan yahay waxa weeyaan qof kastaaba wuu ka maaragtay haybaystaayo wuu ka ducaystaa oo halka uu joogo ayuu ugu yimaadaa laakiin imika waxay nagu soo badatay waxaynaan garanaynin waxa la yidhi waxa taqaanay waxa la yiraahdaa waa mid subxaanallah waxa soo kordhayna ilaahay baa laga magan galaa wax soo kordhay baan imika warkaynaa war cuqaashu iyo salaadiintu iyo dhaqanku malaa'ig maaha way bukoodaan way gaboobaan way socoteeyaan laakiin mansabkooga lama taabtatee ninka taabtaana waa la dilaa dhimasha laga xigaa adeer baasha in la qarqariyo ma wallahi billahi tallaahi waan dhaaranaya haddii la joojin waayo waxa socda habeen dambe wixii magaalada ka dhacay iyo sahan dambe mas'uulka ma inanaba wallahi baanan mas'uulka ahay reer nuur baadiye joogaan mas'uulka ahayn ku magaalo joogaan mas'uulka ahayn ku dibadda joogaan mas'uulka ahayn ku docda joogaan mas'uulka ahayn waxaan tusaynaa kuwa nagugujinaya waxaanu nahay baanu tusaynaa wallahi waxaan la hadlayaa wasiirka anagu walaalkuma odhanayna wasiir tol baynu nahay sariya hoosba waxbaanu kuugu sheegnay madax baanu leenahay 100 jeer baa lagu sheegay waa wasiir saajin waad naga dhamaan laadahay war adigu ma wasiirka arrimaha gudaha tahay ma madaxweyne ku xigeenkii baa tahay ma baro saabkii gobolka tahay ma madaxweynaha qaranka tahay maxaana ka dul dhigaadeer mise wasiirka ganacsiga lagu magacaabayo gabiga iyagaba ganacsi baad noo haysataa ma ganacsi baad namoodaysaa war naga xishoode wallahi wixii kugu dhacaada mas'uulka beesha uu ka dhashay tolka iyo jibriil oo insa waxaan leenahay war naga qabtade wallahi hadii la naga qaban waa iska qabanayna wuu nagu soo duulay gobolkii nabadgelyadiisii buu khalkhalinayaa baro saabkii oo nu isognahay buu dusha kaga yimiday adeer gobolka yaag mas'uulka nabadgelyadiisii loo raacaya anagu cuqaashi baanu nahay nabadgelyada gobolka cidna uma daba fadhino shalay waxaan lahaa war xasan sheekh maxamuud oo adigu Soomaaliland kama talisid war saajina waa wadal de kama talisid gudoomiye leedahay adeer gudoomiye u daade gudoomiyahana waxaan leeyahay war nabadgelyada sidaan u ogeynaan isku xiriirino jooji waxaas adeer waxba la isku gagaban maayo war ninkii saldanad doonayo saldanadu de laba dariiq bay leedahay inaan anu doorto iyo inay dhaxal noqoto suldaan Saleebaan hadduu berri dhinto inamadiisii baa joogade deena suldaan Saleebaan noqo horta ninkii doonayo inaad dhaxaleesho dabadeetana dib u joogso war wax badan oo umada loo qabtaa way badan tahay niba mala saxba jiro waan joog wasaa ilmiilo ay dhaafta geesi qabuud war reeruno hadal way dhaaftay media hadal iyo media way dhaaftay تمالو بول بودين لقوا هذا لما هينه فعلا تصدق فعل إذا هذي هذي فنور تاس الله إذا كي عبد الوهاب وحلا وأنا أدرك بالله كارو كود هذي عبد الوهاب بالله كارو كود هذي أدرك هذا بقول ترى يا بوس كيسي دم هذا واري كاري أنا كود أنا كسرناه سكري تاس الله ساجنا وحلا ساجلو فلا رنولو نبض بدر رنولو قلال بمادلو عروضي ما تاخذ تصنع حردي حتى ما حدوسيه ودلاي أمريكا يسي وينادو حبي تاريخ بوتات كلا ما حدوسيه ودلاي أمريكا حتى أديك كأجا بيلعب وينو رنول ما أبغى سكري تاسله بس صاحب كوا حلا واد ماتش تاي تلي أكيد تو حلا واد ماتش تاي
maayarka waxa la waad mahadsan tahay laakiin hal la joojo nabadgelyada laga shaqeeyo bari hal la joojo hawsha dhacaysa bari hal la joojo dhaqankii u weynaa Gadabuursi Suldaan Saleebaan Cali Ismaaciil wuxuu ahaa ninkii ugu horeeyay wax saldanad casriga qabta kuna shaqeeyay hawlo badan ku soo qabtay ka soo bilow hayayaasha ka soo bilow eerigaabo ka soo bilow elafweyn taariikh fara badan buu soo maray oo bariga Afrika wixii maanta ka dambeeya annaga jeedal aan leenahay la nagu karbaashi maayo wixii ka yimaadana nabadgelyo darrada annagu mas'uul ka bani makaahiilow reer nuur maalinta oo wax idinka doono uu yiraahdo boos isii war ama yeel ama diid xor baad u tahay reer nuur wali waxba idinkama doonin annaga laftarkayga taladu nama soo wada gaarin annagu waxba ismaanaan weydiinin war makaahiilow dhaqanka la iskama weerar horna waanu nidhi makaahiilow dhaqanka annaga weerar Suldaan Saleebaan Suldaan makaahiil buu ahaa Suldaan guud buu ahaa inaan ka yaree maxaan ku leeyahay Cabdihaab Cige iyo suldaanka maxaa la isku waxa weeyaan Suldaan Saleebaan darajadii uu gaaray uu ka bilaabay hoosta reer Nuurweyne Ilaahay makaayil ku socday maantana way jirtaayo kaarkii kama guban uu yaali uu noolya uu jira ina ka reer Nuur een aabbihi adeerkii iyo abkii midna soo marin nin kale reer Nuurna ku qasbi maayeen ka iyaguna waxba noqon maayo u dooni maayo de waxba waxaan leenahay war waxaan leenahay makaayil haday tahay haday cid kala tahay iyo haday reer Nuurba mudcaye ku jiraan oo isagaba wax kala socdaan arinta dib looga noqdo reer Nuur dib uga tashanaya wax cusub oo eega hore oo haynaa ma jiro nama soo gaarin inaka Cabdi Wahaab la sheegaya annaga nama hor iman nama soo hormida aniga ugu daaweyn baan u maleynayaa beelaha inta joogta eega Suldaan Nuur iyo raggaan bay iga weyn maanu aragoona lamu hor imandee sheekada eegun baan maqalay waaba la shaacinaya wallahi waxaan oran lahaa wasiirkaasi inta inaan 9 jiro dadka ku sii doodo oday xanuunsanayo 9 jiro ku dul dejinayso deputy minister ba ka dhigo adaaba wasiire wasiir ku xigeen waayo qalinkaaga ba keenayaba wasiir ku xigeen waxaan leeyahay una xasan maxamuud ba ninka xamar haysta ayaa nin buu la hadlay wuxuu yiri qaroolow dhiiqa lugaha lagu gelinayaa wasiirow dhiiqu ma lugaha lagu gelinayaa meesha wax ka ma jirto marnaba gorgortan ma galayso magaca masamka iyo midnimada beesha reer Nuur marnaba laga gorgortami maayo hogaamiyaha ummadeeda reer Nuur Suldaan Saleebaan Cali Ismaaciil isagoo aynu ognahay aynu ka warqabno xaaladdu maanta uu ku jiro umayna fadhiin xilligan isaga ah ruwaayad iyo fargelin dhaqan saajinow saldanada suldaannimadu ma aha golihii fulinta ee xukuumaddaada waxaad cilaamisay dagaal beesha reer Nuur ah wixii ka yimaadana adiga mas'uuliyadda qaadi doona laakiin ninka saajin la yiraahdo horta murankayagu waa u batay isaga dhabankayagu ma isku haysanaa oo ku ribaaxi maayo ribaaxi maysi maanta laga bilaabo saajin kii sanada ba ribaaxnaay isagu wasiir makaahil buu ahaa suldaankana suldaan makaahil buu booskan maanta isagu ka sheekeynay kiisa lagu waayay bal isagu wuxuu ka leeyahay daba dhabankiisa isku qabsanayna saacadan laga bilaabo wax kale oo lagu wada hadlayaa ma jirto la isna bari maayo de suldaanku waxa uu ahaa iyo waxa uu yahay de makaayil waxa fara badan hadii cid kale weerarayso de macnaan loo arki barahay inuu yahay suldaan makaayila de inaan ku adeerka ahaa baa lagu istaaro saajin ku istaaray arinta dhaqanka Suldaan Saleebaan ee uu taagan yahay ayaanu ka hadlaynaa tabakariixa dadka kalena annaga noo noqon maayo suldaan waxaan leenahay nin waliba ninka uu eriyayo haariyo laakiin waan hadduu samaysanayo caaqil foote
hadduu samaysanayo suldaan foote hadduu samaysanayo wuxuu samaysanayo nin walba uu samaysan jiray kuwa koreba way samaysan jireen kun caaqil foote baa jooga oo gobolka jooga oo waddanka jooga oo gobolka jooga oo Soomaaliland jooga kuwa haddaad samaysanaysaan samaysta dee ma annaga xukuumadda ku haysanay kuwii hore caaqil footeedii kuma aanaan haysan caaqil foote baanu bixinoo tiri baa la yidhaha annaga lanama idhaa tiri mana yihin